xaafadda ex control ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay dadka deegaanka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u sheegeen in haweeney halkaasi ku sugneed ay dishay gabar u shaqayn jirta oo adeegto u ahayd. ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay qofkaas dumarka ah oo la sheegay in hadda ay ku xiran tahay xarunta dambi baarista booliiska Soomaaliya ee CID. lama oga sababta keentay in haweeneydan ay disho gabadhii u adeegaysay, laakiin waxa ay dadkii aan la hadalnay oo deegaanka ahaa oo goobta ku sugnaa ee qaarkood noo sheegeen in caafimaad ahaan gabadhu ay caafimaadkeedu taam yahay, qiratan in ayadu dishay, waxayna sababta ku sheegtay oo keliya in ay canaananaysay. qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa iga warantay. ana xaafadda waxaan joogaa ex control afgooye dhinaca warliskaan deganahay. waa garta saaka waaga markuu beriye xaafadda waxay ku soo kacday saxmad gabar guri naga soo horjeeda deganeed xala waxay dishay adiga 10 saac gabar u shaqeynaysay. waa garta gabadha markay dishay ilmeedii wadatay way baxday, ninkii qabay wacday waxay tiri guriga meeda yaala ee ka doon. waa garta meedka yaa waayo dhahay. hay gabadhii shaqaalaha waaye tiri. waa garta yaa dilay oo dhahay anaa dilay tiri. yey leedahay marka inta ay u sheegaysaa ninkii ayada qabay gabadha guriga iskale ninkii qabay. waa garta ninkii wuu soo baxay guriga uu imaaday albaabka markuu furay meydka gabadha wuu arkay kulete laakiin meydka ma uusan ogan isaga wuu fiiriyey xagga kale ku fiiriyey teedido waa garta teedida meesha imaatay. hay markii meesha imaatay meydka la fiiriyey kulete gabdho baaran way watay meydka la fiiriyey xilligay dhimatay iyo wixii la fiiriyey waxaa dhahay gabadhan qofta dishaa lasoo qabto. hay isla meeshii meydka yaalo waxaa la keenay naagtii dilka geysatay. waa garta oo dadkeedii iyada ay ka dhalatay ay wadaan. waa garta meesha lagu wareystay waa ay qiratay anaa dilay tiri meydkii iyo ayadana waa la qaaday. gabadha la dilay 14 sano jirtay janaala laga keenay meydkeeda ilaa hadda lama dugin CID-da yaala oo hadda 12 saac ka imaanay annaka gabadhii farka dilka geysatana ayadana way xirantahay CID-da ku xirantahay. marka maxay ku dishay maxay u adeegsatay dilka? waxay u adeegsatay markii hore kale ku dhufatay macnaha dhinacan oo tunka ay kasha ugu dhuftay kasha xawaajiga. waa garta gabadha markii wareertay dhulka ku dhacdana intay ka kortagtay ay dishay. waa garta marka waxa ka muuqatay eedidii oo dhuunta ahayd ka muuqatay tunka wixii ugu dhacay kama muuqan, laakiin ayada sida ay ku qaratay falka markii la wareegsanay waxay tir kalan ku dhuftay dhulka markii ku dhacdana intaan dultagan aan ay ku dhigay tirin. maxaa ugu wacan marka ay dhibaatada u geysatay? maxaa ay ka dhaxay labadooda? wax ka dhaxeeya ma lahan aba way u shaqeynaysay sida ay sheegtay, laakiin waxay tiri aniga waa canaananay. waa garta marka saasa wax u dhiceen macanaan oo kaliya hadda intaasoo dhibaato gabadha loogu geystay oo ay u dishay mise wax kale oo khilaaf oo dhaxyaalaya jira? sida ay ayada sheegtay afkeedana ka tarata CID-da horteedana ka tarata waa canaananay tiri. wax kale ka dhaxay karan ma lahan oo cunugta la dilo waa 14 sano jir. waa garta waana u shaqeynaysaa shaqaale ee 2 bilood u joogtaba. meesha ay gabadha wax dishay ku hadlaysay oo CID-da ugu hor qirinaysay oo dilka ku faahfaahinaysa adu ma taagneed ma joogtay? waa guriga meydku yaalo korkiisa waan joogaa aniga. dadka markii gabadha la soo qabanay ilaa CID-da imaanaysa ilaa la qaaday ilaa CID-da waa la tagnay. haddana annagu xaafadda dariska ahaa galabta 12 saac baxnay 10 saac baxnay 12 saac aan ka imaanay meydkina weli lama dugin gabadha hooyada laakiin 12 saac bar waxay ka imaatay janaale. waa garta saasay u dhaceen. marka iga waran gabadha wax dishay caruur ma lahaydoo ma u joogeen? gabadha wax dishay caruur ma u joogaan? waa u joogan ilmaheeda saakala si guriga ka baxsatay guriga ciidaheeda geysatay. waa garta kabacdi ninkii markii maadan ninkii inta la qabtaa naagtaana dadkiisa daadii qabteen sidii markii ciideedii ku wargeliyay gabadhii la wada ciideedii aba keentaba. waa garta marka hadda ayada uun baa xiran oo qof kale ma xirna. gabadhaasna way xiran tahay. ninkii wakiilka ahaa oo gabadha janaala ka keenay oo shaqaalaha gabadhan u keeno oo u dhaxeeyay gabadha cidda gabadha dhashay iyo gabadhan wax dilaysa ninkii u dhaxeeyayna wuu xiran yahay oo wuxuu ku xiran yahay janaale. waa yaa janaala ku xiray? waxa ku xiray ciddii gabadha dhimata dhashay. yaa jooga janaala wax xiray? kulleeteen dadka markaas waxa loo dhiibaadaa qolooyinkan kale loo dhiibaadaa ninkii gabadha keenay oo wakiilka ka ahaa. al-shabaab mise qof kale? al-shabaab.
gabadha wax dishay nolosheeda iyo caafimaadkeeda wax war ma ka haysaan? gabadha wax dishay annaka sidii maanta noola muuqatay iyo sidii nala ahaa jirto wax isbedela ma laha. sababtoo waxaan hagadirisa is-arki jiraanahay caafimaad ahaanteeda taama aheyd markii la keenay indhashareerka rogaa la dhahay indhashareerka iska rogto waxayba ku dagaalamaysaba si aysan shacabka macnaha meesha u imaaday oo ku soo baxay musiibadan aysan wejigeeda u arkin ay waxay rabtay inay wejigeeda qarso. ciidamada si ay dhiida indhashareerkay ka qaadeen markay ka qaadeen mar walba waxay isku dayaysa inay wejigeeda qariso. waa garta ciidda indhashareerkayga ku doodaysa wax iska bedela ma lahan. qof xataa falgeysatay ma u ekeen oo sababtoo qofta markay fal rabaaniya maaha waxaan rabaan lama dhihi karo ee falgeysato argagaxa ka muuqo lahay. gabadhan wax argagax oo ka muuqda ma nooga muuqo maanta annaka waxa xaafadda idriska ay la yaabeen. wax buuqa uu ku furnaa ama problem ama dhibaato waayada ay wajahaysay ma idinla wadaaya gabadha wax dishay? maya gabadha ninka macnaha noloma ogolan diris aan inaan u wareysano noloma ogolan oo si dhiga markii la keenaba gacanta ku dhigta gabadha falka geysatay. waa garta anaka marka jaanis ma loo siinin. iga waran hadda xaafadda maxaa laga hadalhayaa see loo dareemo wax dhibaatadan dhacday? walaalo xaafadda horta arrin ku cusub waaye aniga dhagteedana way ku cusub tahay intii kolleyta iga horeysa ma ogi laakiinse xaafadda way ku cusub tahay. xaafadda marka waxaa la dhex maraayo waxay tahay waxaa dhahay naagtan falka dilkaa geysatay 2 gabdhood oo hore oo shaqaale ah ee saan oo kale u dishay laakiin gabdhahaas way jarjartay aa dhahay. xaafadda marka waxaa la hadalhayaa oo la dhex marayaa ilaa galabta keliya may kala bixi rabtay ma juudaan leeyaa ma ninka uga maseertay maxaa keeni kara canaan intaan qof bini aadan nafta loogama goy kara maxaa keeni kara inay nafta ka jirto gabadhan haddana ay inta guriga ku xirto ay ka tagto.